السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي مeel kasta dunida ka joogtaan waxaan leeyahay galab wanaagsan. qofkay galabta, qofkay duhurta, qofkay casr tahay, qofkay habeen tahay, qofkay hurdo, qofkay soo jeeda, dhammaantiin waxaan leeyahay waqti qurux badan ama galab qurux badan qof walba waqtigeedu tahay. marka asxaabteyda qaaliga waxaan leeyahay fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe, like, share, comment leh asxaabtaada la wadaag nagu soo biira. haddaa awal nala joogtay like nagu caawi, haddaan ugu cusub tahana intaas oo dhan nagu sii caawi. asxaabtooda walaashaa waaye oo meeshaan joogto oo la dhahaa Nasr Cabdullaahi Yuusuf, ma fahanteen asxaabteyda qaaliga. marka waxaan leeyahay waqti qurux badan iyo video qurux badan. hadda galab dhaweed waxaan ka hadalnay inaan arrimaha jacaylka soo day doono, waan soo daynayaa insha allah. waqti wax yar baa si naga ah markay noo wanaagsanaadaan baanu bilaabeynaa. marka waxa weeyaan de waa bilowno kaygiyaa laga bilaabay ka kale insha allah kusoo xigso doona. barnaamijyadeeda waxaa ku jira barnaamijyo badan weeyaano arrimaha jacaylka ku jiro, arrimo kale ku jiro oo soo dayn doonaa arrimaha qurux badan. waxaa kaloo ku jira heesaha bilaa muusiga xataa waan isoo qaadi doonaa. hadda codkayga hadduu dalandooliyahan hadinka uun baa iisoo sheegi doona, fahanteen. laakiin waxaan rabaa cod bilaa muusiga inaan kugu soo qaado, kuwii hore, kuwii dambe, kuwii dhexe, intaba yaa intiinaba waxaan ku dhahday saaban mataqaanaa ugu baashaaleynaha ku dhahay ooyee kii qabe wallahi waxaan u malay doonaa inay ka dhacdanaa codkaaga dalandoolida naga aamusi la inay ka dhacdaan malayn doonaa. markaas xaabay waxaan leeyahay waqti qurux badan aan leeyahay inaan waqti la qaato. saacad walba waan jeclahay, waqti walba waan jeclahay inaan hortiina soo fariisto haddii yacni waqtigiisa maxaayo. mararka qaar haddaan hortiina soo fariisan dee ma jecliyo, waxaan iskaga xiisaa inaan in la hadlo mataqaanaa in soo hor fariisto dhib male. laakiin inta waqti isku hayna dee inta waxaan idinka codsanayaa aniga kulli waa inay xiisaa inaan idinkana ii xiisi doontaano. mida kaleeto waxa weeyaan gabar walaashiin oo caawinaad in karabto. aniga waa cusubahay social media, waa ku cusubahay yacni youtube-kaan ku cusubahay. waxaan rabaa inaa iga caawisaano. hadde idinka hadan ii caawo qof kale caawinayo ma jiro. yacni wadamo kaleeto ama maxayd qolo kaleeto ma ka raba caawinaad. waxaan ka rabaa waa soomaaliyada walaalaheen ah meel kastay joogaan. waxaan leeyahay isoo dhaweeya, subscribe, like, share, commentina haleeyo caawiyo. dee waxa weeye qof caawa duu ku yiraahdo meel kaloo loo leexdo waxaan filayaa inaysan jirinin. waxa weeyaan haddaanay is caawiweynane waxna caawinaayo ma jiraano. ilaaha caawinaada iskale, laakiin hala isku dadaalaa la dhahay. waxaa ilaahay oo yacni raalli ka noqona dee awlaysan ban hagaaginin. laakiin waxaan rajeyneynaa insha allah wax walbo iyo tallaabo kasta oo wanaagsan oo qaadano inay sidii ilaahay ugu talagalo oo wanaaga ay noqoto insha allah bilkarin. markaas asxaabteyda qaaliga waxaan leeyahay bal hadde codkayga hadduu dalandooliye noqdo hore aan ku dhahay, bal hadda iisoo qoro commentiga igu soo reeba wixii akhbaara awooki ay ii qabay. waxaan u malayn doonaa yaa inay ka dhacdanaa codkaaga dalandooliyada dhaga aamusi. ama waxaad dhihi doontaan kaaliskaari waa hore u socaa dhihi doontaan, ama dalandooliyada naga aamusi aa dhihi doontaan. horta dalandooliyo qof yaqaana asxaabay ma inagu jira? hadduu inagu jiro iisoo qora. dalandooliyo waxaa la dhahaayo dalandooliyo inay ka dhacdaa malaynaya. marka asxaabtida qaaliga qiimaha leh waxaa idin leeyahay bal hadda kusoo dhawaada codkaygii qanaaye awookiya qaba bal dhegeysta. bal hadda waa kaay cawooy maalin baan la yidhi cadooy kudcuur baan la yidhi idlooy weyl baan la yidhi ammaanadu waa culays hirkiya dhulku diidayo carana wax la yidhi mugeed dawada caashaqaani helay cid kale loo dooni mayo cilmiga lagu dhigay caqliga kaashaba la yidhi codiya jiib baa la yidhi janiya irin baa la yidhi cayaar saaca baa la yidhi qofuu cudur ku hayoon haddana kaa caawinayn xadkaa maqan baa la yidhi. marka asxaabta waa inii dhameelaha, laakiin haddana inaan inii dhameeyo muhiim maahan intasaa naga badan. marka asxaabay waxaan leeyahay bal hadde ha laga soo hadlo, bal jawiga siduu yahay ha laga soo hadlo.
هراء صعنينا إن هذا بدنا أنا وحن جعلها يساء ونوعيدان وكلا أنا داس كي وحس مجعلي لكن هل يسوع وحن كويس داس وقطر إيها كله سو قادنا معهبي إن شاء الله يسوع قادنا ما فهمتين برتام بر الله أنا كده سو قادنا كله إنك استونا جعلنا لكن هذا marka dhaysto waa qoslaa intaan aniga ku jaceelka iska jeclahay way aniga naceebkii aniga waxba isku manihiin ya faara aniga waxaan jeclahay kala iska arag laakiin qaraac iyo dagaal iyo qajac iyo taas ma aha waxaan jeclahay wararka quruxda badan hadalada quruxda badan qoraalada quruxda badan kuwaas aad ay xiisigiliyaan laakiin wax xun oo dhan ani shaqadeeda ma ahan kuwaas ma fahanteen asxaabay marka waxaan leeyahay waqti badan ma haysto marka asxaabay waxaan leeyahay waqti qurux badan ma fahanteen sidaas iyo nabadgelyo